qof walbo anaga naga mid ah wuxuu leeyahay cadow. cadowgaasna waa mid aad u xun cadownimadiisa. cadowgaasoo jecel inaan khasaarno adduun iyo aakhiro. cadowgaasna cadownimadiisa Allah ayaa inooga digay. Allahna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay inna ash-shaytaana lakum caduwwun fattaqiduuhu caduwwa. shaydaan waa cadowgiine waxaad ka dhigateen cadow ayuu yiri Allah. anagana shaydaankii oo cadownimadiisa Allah inooga digay cadow kama aana dhiganine anaga dhexdeena ayaa cadow isku noqonnay. qofba qofka kale oo muslimka ah oo walaalkiisa ayuu wuxuu u arkaa cadowgiisa ugu weyn inuu yahay. Allahna wuxuu leeyahay shaydaan waa cadowgiine cadow ka dhigta. waxaan kaloo dayacnay amaradii Allah ayaan dayacnay, waxaana raacnay oo xabiib aan ka dhiganay shaydaanka amaradiisa ayaan fulinay. wax alla wuxuuna dhaho ayaan fulinaa. meel alla meeshu lagu hogaamiyey ayaanu u hogaansanaa. digniintii alla uuna siiyey oona yiri shaydaan waa cadowgiine cadow ka dhigta ma aana qaadanine waan dayacnay. amaradii allana waan ka tagnay, waxaana xabiib ka dhiganay shaydaan ayaan xabiib ka dhiganay. shaydaankii ayaan raacnay, amaradiisa ayaan fulinaa. meeshuu noo hogaamiyey ayaan u hogaansanaa. meelaha uu geli waayo shaydaankana wuxuu u adeegsadaa dumarkeena ayuu u adeegsadaa. marka anaga waxaan nahay dad lunsan oo cadowgooda xabiib ka dhigtay, rabbiga qalqayna amarkiisa dayacay. inteena badan sidaas ayaanu nahay. Allahna soo hanuuniyo. qof walbo muslim ah cadowgiisa ugu weyn waa shaydaan. inta aad leedahay ama aad farta ku fiiqaysid qof muslim oo walaalkaaga ah waa cadowgayga ugu weyn. inta aad leedahay cadowgaaga ugu weyn uu yahay shaydaan oo aadan u aqoonsanayn inuu cadowgaaga shaydaan yahay, weligaaga ma aflaxaysid. awalan shaydaanka aameen iska saarno. 3 cadow ayaa soo raaca shaydaankaasaydi, waana naftaada, adduunyada iyo hawada. 3daas qofkii ay qaado shaydaanna uu cadowgiisa ugu weyn uu yahay, kaasi waa mid adduun iyo aakhiraba khasaaray.